الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، وكلمتني أنا قلت لك رمضان maalmahan dhoweyto waxaynu wax ka soo taabanay adkaarta. maanta waxaan qaadanaynaa hal xadiid oo nabiga sala allahu caleyhi wasalam ka sugan calayhi salaatu wassalaam. xadiidkaas waa xadiid saxiix ah, alimaamu axmed uu wariyey. wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wassalaam: innaka lan tadaca shay-an lilahi caza wajal ilaa badalaka allahu bihi maa huwa khayrun lak. wuxuu leeyahay nabigu calayhi salaatu wassalaam, haddii aad shay ilaahay darti uga tagtid, wax xumaan ah ilaahay darti haddaad uga tagtid, ilaahay wuxuu kuugu bedelayaa wixii aad ka tagtay wax ka khayr badan, wax kaaga khayr badan oo diintaada iyo adduunyadaada iyo aakhiradaada kuu dhaama oo kaaga fiican ayuu ilaahay kuugu bedelayaa shaygii aad ilaahay darti uga tagtay. wuxuu leeyahay alcalaamata bn اlqayim raxmat ullaahi calayhi, qofka markuu ilaahay shaygii uu ilaahay darti uga tegay wax ka khayr badan ugu bedelayo, waxay noqon kartaa siyaabo kala duwan. waxaa dhici karta shaygii shay lamida in lagugu bedelo, oo lacagtii xaaraanta ahayd in lagugu bedelo lacag xalaal oo fara badan oo booska ilaahay kuu geliyo. zinadii iyo macsiyadii aad ilaahay darti uga tagtay guur xalaala oo wanaagsan inuu ilaahay kuugu bedelo. saaxiibkii xumaa ee ilaahay darti aad u goysay ama uga tagtay saaxiib wanaagsan inuu ilaahay kuugu bedelo. waxaa kaloo dhici karta waxii aad ilaahay darti uga tagtay wax kaba sii fiicanba in lagugu bedelo. waxyaabaha qofka loogu bedelo waxaa ugu weyn inuu ilaahay siiya qanaac, qalbigaaga ilaahay inuu dejiyo, qalbigaaga ilaahay inuu geliyo rida iyo qanaaca iyo sabir, inuu ilaahay qalbigaaga ka buuxiyo. siday culimmadu yidhaahdaan, dadkii saalixiinta ahay hore nin ka mid ah oo aada u rafaadsan oo rafaad ka muuqdo oo zaahid ah ayaa waxaa lagu yidhi, waatuu nebigu yihi calayhi salaatu wassalaam, qofkii ilaahay dartii shay uga taga wax ka khayr badan buu ilaahay ugu bedelaa. adiguna adduunyo o dhan baad ilaahay dartii uga tagtay, maxaa lagugu bedelay? markaasaa wuxuu yidhi, waxaa ilaahay iigu bedelay alridaa bimaa ana fiih. situationkan aan ku jiro inaan raalli ku ahay oon ku qanacsanahay oo agtayda adduunya wax weyn ayna ka ahayn ayuu ilaahay igu bedelay. tusaalooyinka cajiibka waxaa ka mid a walaalayaal, qofku hadduu ilaahay darti shay uga tago inuuna ilaahay dayacaynin oo wax ka khayr badan allah ugu bedelayo. nabiyullaahi sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina salaatu wassalaam, markii qur-aanku siduu ka warramay fii suurati saad uu fardaha laayay, fadafiqa masxan bisuuqi waalacnaaq, siday mufasiriinta qaarkood leeyihiin salaadii casar fardihii oo ku jira muxuu ahaa training iyo bandhig military, siduu ugu mashquulsanaa bay salaaddii casar kaga tagtay bay yidhahdaan oo iloobay oo way ka mashquuliyeen oo way halmaansiiyeen. markii uu isxusuustayna ilaahay waa ku yihi xataa tawaarad bilxijaab, ilaa qoraxdu ka dhacdo. markuu xusuustayna fardihii intuu ku xanaaqay oo ilaahay darti u xanaaqay ayuu fardihii laayay bay leeyihiin mufasiriinta qaarkood. fadafiqa masxan bisuuqi waalacnaaq, gaadiidkii ugu qaalisanaa ee wakhtigaa la isticmaali jiray ayay ahaayeen farduhu, hadday noqoto xagga dagaalka oo technical loo isticmaalo iyo hadday noqoto xagga gaadiidka ugu dheereeya, aadna loo jeclaa. markuu nebi sulaymaan ilaahay dartii isu dhaafiyey fardihii, ilaahay wuxuu inoo sheegay gaadiidka uu ugu bedelay inuu ahaa gaadiid ka khayr badan oo ka quality badan oo ka dheereeya fardihii. ilaahay wuxuu ihi fasakharnaa lahu riixa tajrii biamrihi ruukha'an xaydu asaa, dabayl wax walba ka awood badan oo fardihii ka dheeraysa, oon gaas iyo waxba u baahnayn, oo meel walba waxa weeye bidhiqsi ku tegaysa ayuu ilaahay ugu bedelay nebi sulaymaan. nebiyullaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina salaatu wassalaam, markii ciraaq lagu dhibay
dadkiisii iyo dalkiisii iyo duunyadiisii uu ilaahay darti uga hijrooday ee uu shaam tegey aabbihii intuu u hanjabay uu ku yidhi muxuu ahaa haddaadan iga dheeraanin la arjumannaka wahjurnii maliya dhagax baan kugu dilayaa orode dhaaf markuu ku yidhi mar dambe ayaana ku arkin ilaahay wuxuu inoo sheegay markuu alla dartii uga hijrooday oo ilaahay dartii dalkii uu jeclaa iyo dadkuu jeclaa iyo dunyadu jeclaaba uga tegay ciraaq oo uu aaday dhulkii shaam nabiyullaahi ibraahim ilaahay wuxuu makaniyey oo uu ugu bedelay dhulkii uu ka tegay ee ciraaq dhulka khayr badan oo ah shaam waayo waa muhaajarul ambiyaa meeshay ambiyadu hijroon jireen wey waana dhulka ilaahay ku tilmaamay ila alardi allatii baarakna dhulkii la barakeeyey ee suuratul ambiyaa lagu sheegay waxa weeye waa shaam wey dhulkaasaa ilaahay nebi ibraahim dejiyey dadkii uu jeclaa ee ehelkiisa ahaana dad ka fiican baa ilaahay siiyey sidaa darteed buu ilaahay wuxuu leeyahay falama اctazalahum wma yacbuduuna min duuni اllahi wahabnaa lahu isxaaqa wayacquub wakulan jacalnaa nebiya markuu dadkii uu jeclaa ka dhex baxay nebi ibraahim oo ilaahay dartii uga tegey wuxuu ilaahay u hibeeyey isxaaq iyo yacquub wiilal wada nebiye ah mid walbana nebi baan ka dhignay buu ilaahay saxaabatu rasuulillahi ridwaan ullaahi calayhim markii nin walba uu ka soo hijrooday dalkii iyo dadkii uu jeclaa iyo xoolihiisii ee madiina la isugu yimid ilaahay dowlad islaam uu u dhaliyey oo uu makaniyey mashaariq alardi wa maghaaribiha isti iyo westi dhulkii buu ilaahay u furay tamkiin buu ilaahay siiyey tabaaraka wa tacaala dhulkii baa ilaahay dhaxashiiyey diintoodii baa ilaahay ku guuleeyey dowlad qawiya baa ilaahay siiyey makhraj buu ilaahay u furay kullu daalikana walaalayaal waxay ina baraysaa qofku hadduu ilaahay ka baqo oo ilaahay isku halleeyo oo ilaahay isku xidho oo wuxuu iska daynaya ilaahay darti uga taga ilaahay caza wajal inuuna dayacaynin oo meel cidla uuna dhigaynin siduu ilaahay yidhi waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaysu laa yaxtasib qofkii ilaahay ka baqa dhibaatada haysata meel uu kaga baxo iyo wuxuu kaga baxo ilaahay siiyaa meel uuna filaynina ilaahay wuu ka irsaaqaa ilahay waxaan ka baryaynaa tabaaraka wa tacaala inuu qanaaco inagu irsaaqo meel aynaan filaynina inaga irsaaqo xalaalna inagu irsaaqo qalbigeennana ilaahay sugo وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين